waqtigu sidee ayuu u dhaxalsiin karaa cagabarafradan xirfadda hooyada oo kale hurdo dheer kadib haa dabcan ugu yaraan 2 sano meelahaas ay ku qaadanayaan xirfadda dhaxalaan sidoo kalena ay naftooda dabari karaan jidhaan iyo sidoo kale xoog ahaan haatan way koreen balse waxa ka dhiman oo kaliya barashada xirfadda iyo ku adkaysigeeda waa si mid maalin la horumaraysa xirfaddu halkan kuwa labka dhawaan waxa laga saaraya qoyska dhexdiisa haddii ay diyaar u yihiin iyo haddii kaleba dhanka xirfadda hooyadoodu mar kale way riman tahay waa in jiilka cusub la siiyo fursad sidoo kalena kuwii hore meesha laga saaraa lab iyo dhadigba mararka qaar gooshu waa hooyadii waqti yar ayaa haray ku hubiso inay ku yaryar xirfad leeyihiin ay ku badbaadi karaan iskuul inagoo adeegsanna kamarada casriga ee habeenkii waxaanu halkaa kala sii socon karaa xirfadooda iyo sida u tadawarayso inta lagu guda jira habeenkii marka uu jiro dayaxo mugdigu halkan waa mid iskaba kooban dayaxa cadada ee halkan guud ahaanba waxa uu sheekhanayaa habeenkii xidigaha starlight camera si fiican ay wax arkaysaa halkan xayawaanku waa tarabeer halkan raxantana way isbalaadhinaysaa sidoo kalena way fadhiisanayaan libaaxyada yar haatan waxay joogaan waqtiga qayb ka noqon lahaayeen ugaarsiga maanta waana u diyaar mid ah balse hooyadoodu haatan waa fool waxaa ka soo dhow inay dhasho isla mar ahaantaasina haatan iyadu maanta diyaar uma ahayn ugaarsato sidoo kalena cawskan sidan u gaaban kuwa qaangaarka waxa laga soo arki karaa meel fog waxay u baahan yihiin bartaan markasta ay ugaadhu arkayso jaaniska ku guulaysan karaan oo wadagii way iskaga tagto gooshi iyadoo naftooda ku haleynaysa mid kasta maanta naftiisa isaga ka masuula una ugaarsanaya maanta libaaxyadu kaliya halka kama aha ugaarsadayaal waxaa ku soo biiray meesha soo galay midka lagu magacaabo dhurwaaga oo erey ugaadha soo xiiqdo dhurwaagu danka ma galayo xataa haddii arkayso ugaadhu dayax waraabaha iyo ugaadha kaleba wuu isku ifinayaa si wacanna way isku arkayaan si wacanna ay u arkayaan waxa uu sameynayo dhurwaagu ku yaryaraa iyagu libaaxa balse mararka qaar ka qaadista dhurwaaga laga qaaday raqda waxay u tahay fursad weyn libaaxyada way raacayaan libaaxyada yar hooyada si ugu qaadaan dhurwaaga raqdiisa waraabuhu ma laha hal aruur balse isagu wuxuu doonay inuu eriyo si uu xiiqdo libaaxyadu talaaba ay soo qaadeen waana soo galeen weerarka mid kamid ah kuwa dhadiga libaaxa hooyooyinka ay doonayeen inay khibradiisa maanta ku yaryareen libaaxa nasiib wanaag logasigu waa mid aad u daalan balse libaaxyada yaryar ee qaangaarka ah iyagu waa gaabis maanta waxay doonaysaa gooshu wali inay qabato mid kamid ah logasiga
isla markay qabatay gooshu midda logisiga waxaa ku soo gaadhay midda yareed ee goosha ahayd iyaduna ee haatan qaan gaadhay sidoo kalena waxay dib uga istaagtay middii weynaysay middan 10 ugu noqoto waxay u noqonaysaa markii ugu horeysay ee iyadu wax dilayso xawlal mareedka iyo neefmareennada ayay ka buuxsatay kala goysay waa tallaabadeedii koowaad ee halka ka fushay jaranjarta ugaarsada guulaystay inay noqoto maanta qayb weyn iyo saameyn bay ku leedahay sida hooyadeed oo kale libaaxyadan daayarka waqtigu waa iskurayaa siday filayaan si ka dhow ayaa dhawaan loo eri doonaa waqtiguna waa mid ku gaabisa waxaa mar kale bilaabmaya gudwarkii sababtoo ah waxa hooyanay dayaxa libaaxyadu shaqadooda inta ugu badan waxa qabtaan waqtiyada mugdiga kaliya tamaha ugaarsiga balse mararka qaar taranta kuwa yaryar ee libaaxyada ee dhalinyarta ah iyagu halkaas ay ka sii wadayaan noloshooda horumarintooda iyo ugaarsiga ay ku tirsan yihiin qaarkood waa qaar aan haysan caawimo sidoo kalena libaaxyadan yaryar aan lahayn khibrad xayawaanada xoogga u saaxiibka ay khatar ay ugu jiraan kuwa yaryar dayaxlaanta iyo mugdiga ayaa waxa ku dhiirigelinaya inay weeraraan qaar aad u xoog badan waa looda caalweynta loo yaqaan midaas oo caadiyan xoog badan geesaad u af badan iyo sidoo kale cidiyaha ay khatar ugu jiraan mugdigu waxa ku caawinaya inay qarsoomaan iyagoo ka baxsan ilooda inkastoo ay adag tahay aabayaashood oo la socon inay kuwani ay dilaan oo luka dhigaan balse dilista loo caalweynta loo yaqaan caawa qorshahaba uguma jirin kuwan kuwa yaryar raxanta way ka didanayeen ugaadha sidaas oo tahayna waa waqtigii qoyska laga saari lahaa dulqaad lama laha waxay isku arkeen astaamihii qaangaadhka kuwan yaryar dhexdooda ayaa isku boodaya hooyadood haatan iyaga samir badan uma laha midka weyn ee libaaxa wuxuu u yeedhayaa walaalkii si uu garab istaago isku imaanshaha labada waaweyn ee walaalaha kuwa yaryar khatar ayuu ku yahay halkana loogama baahna haatan iyaga kuwa yaryar ee laba jirka ee labka ah iskuma taagi karaan aabahood oo 250 kilogram oo xoog ah waqtigooda ayaa dhamaaday kuwa yaryar ee labka qoyska dhexdiisa maalmihii adkaayay noloshooda ayaa haatan bilowga xirfadooda ugaarsiga waa inay si wada jir u horumariyaan haddii kale way macluulayaan waa markii ugu horeysay noloshooda kaligood yihiin iyagoo hubanti la'aan jihaduna ay ka luusan tahay meel ay qabtaan aqoonsan la waxay dhibanaw yihiin qoyskooda intii kale balse waa sharci hooyadood la'aantood ma hubaan waxay qaban doonaan ee ku xiga noloshooda